waxaa maanta guud ahaanba gobolka saaxil si rasmi ah uga bilaabmay diiwaangelinta qaadashada kaarka codbixinta waxaana goobaha ay ka socoto diiwaangelinta qaadashada kaarka codbixinta soo kormeeray gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani mas'uuliyiinta gobolka saaxil kuwa degmada berbera iyo saraakiil sare oo ka socotay xisbiga talada dalka haya kulmiye waxaana ugu horeyntiiba halkaasi ka hadlay maamulka xisbiga wadani ee gobolka saaxil iyo gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro waxaana ay bulshada fareen inay isdiiwaan geliyaan cidii aan hore isu diiwaan gelinin furistii diiwaangelintu ka furantay gobolka saaxil hadda halkan aynu joogno waa dugsiga Hoodaale hoose dhexe halkan waxaanu ku maraynaa gudoomiyihii guud ee xisbiga Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro wafti heer qarana waxaanu leenahay reer saaxil waa fursad qaali ah oo in badan sugaynay oo qofku xaq u leeyahay inuu masiirkiisa gacantiisa uu ku faa'iideysto oo kaarka ku qaato si uu uga qayb galo dhismaha qaranka marka waxaan leenahay si wanaagsan u soo baxa si wanaagsan u qaata si hadhowto codkiinu uu noqdo ka masiirkiina aad doonaysaan inaad ku matashaan farxad weyn bay tahay inaan maanta kala soo qayb galo shacbiga gobolka saaxil dib u furista diiwaangelinta sida la sheegay maanta waxa weeye maalin aynu dib u helay fursad weyn oo laga yaabo jiritaankeedu inuu maalmo kooban yahay waxaana iloo ogolaaday inaynu dib isu diiwaangelino dadkii aan hore isu diiwaangelin dadkii qaan gaadhay muddadii diiwaangelinta hore ka dambeysay iyo dadkii labada jeer codeeyay ee laga kasalgaleeyay inay codeeyaan aan la ogolaanin sharcigu u ogolaanin maalmaha kooban waxaan ugu baaqaynaa shacbiga gobolka saaxil iyo dhammaan gobollada hadhsanba in laga faa'iidaysto muddadaas kooban waxaa kaloo markay tani dhammaato la furi doonaa fursado kale oo ah dadkii kaarku ka lumay in loo sameeyo mar labaad kaarka kuwii aan qaadan inay qaataan dadkii aan imaka kaararka la siiyey kaararka la siiyo isdiiwaangeliyey iyo qofkii doonaya inuu degmo ka bedesho degmo kale kuwaana waa la waqtiyeyn doonaa dhowaan maamulka gobolka saaxil kuwa degmada berbera iyo gudoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga kulmiye oo iyaguna soo kormeeray goobaha ay ka socoto diiwaangelintaasi ayaa markii ay kormeerkaasi ay soo dhammeeyeen ayaa waxay la hadleen warbaahinta waxayna yidhaahdeen waxaa farxad noo ah annagoo maamulkii gobolka degmada ah inuu halkan la joogo gudoomiye ku-xigeenkii labaad ee xisbiga kulmiye oo isna qayb ka ah kormeerka aanu gobolka ku eegayno sida ay diiwaangelintu u socoto ilaahay baa mahad leh dhammaan goobihii magaalada berbera ayaynu iminka maraynaa si nabadgelyo ah oo qurux badan oo wanaagsan bay u socotaa gobolkuna guud ahaan waa nabad dadweynaha reer berbera ee saaxilna si fiican bay u qaadanayna intii aan kaarka hore u qaadan ilaahay baynu mahadnaqaynaa waxaynu ugu mahadnaqaynaa amniga iyo horumarka iyo dhammaan dee waxaynu maanta halkan u nimi waa horumarkeennii iyo inuu qof waliba waxna doorto isna la dooran karo runtii farxad baynoo tahay innagoo nabad iyo roob iyo qabow maanta berberi ku naaloonaysa inaynu codbixintan maanta u diyaar kaar qaadashadan aynu joogno goobtan ay ka socoto iyo goobaha kalean soo kormeernayba wuxuun baanu dadka maanta ku booriyeynaa ku baraarujinaynaa inay qofka muwaadinka kaarhka qaadan inuu qaato runtii gobolka si fiican bay saaka uga socotaa goobihii aanu soo aragnay dhammaantood waa nabad in dhammaan gobolka saaxil ay ka dhaqaaqday diiwaangelintii degmada berbera halkan waxaa kormeer ku maraya maamulkii gobolka iyo degmada iyo madaxdii xisbiga kulmiye ugu sarreeyey oo halkan maraya una kuurgelaya siday dadku isu diiwaangelinayaan iyo siday shaqadu u socoto ilaahay baa mahadle subxaana wa tacaala inoo sakhiray inoo fudaydiyey inaynu nabad inoogu bilaabanto insha allahu inay nabadna inoogu dhammaato si nabadgelyo ah oo wanaagsan oo nidaamsan u socoto runtii saaka inta aynu tilfooninay iyo inta aynu marnay iyo inta aynu joognaba si fiican bay uga socotaa qaadashada kaararka codbixiyayaasha insha allahu waxay ku dhammaan doontaa si nabadgelyo ah waxaan hal fariin oo keliya taa baan doonayay inaan dadweynaha gobolka saaxil u diro
waxaynu haysanaa waa 4 cisho oo keliya 4taa cisho si ay inooga dhammaystiranto oo aanay dadka inta dambe aanay u noqon ama jaam u noqonin waa in ay hore u soo baxaan ay diiwaangelintii ka socoto gobolkii saddexaad gobolka saaxil iyo qayb ka mid ah gobolka Maroodijeex waxaan ku sugannahay gobolka saaxil caasimadiisii waxaan aad iyo aad marka ugu horeysa ugu mahadnaqayaa madaxda gobolka oo si fiican noogu soo dhaweysay halkan waxa kaloo aad aan ugu faraxsanahay sida ay soo abaabuleen gobolka saaxil ilaahayna waxaan ka rajaynayaa inay si nabadgelyo leh sida ay noogu socoto cabdirasaaq qaasim jaamac wararka telefishinka badacas magaalada berbera $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyga Somaliland haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 afargees tayo waa Telesom ma ogtahay inay Somtel bilowday abaalmarino cajiiba oo ay macaamiisheeda ugu tala gashay waxaa ka mid ah abaalmarinahaas dahab microwave TV-yo iyo moobilo dhammaan shirkadda Samsung ah account lacagi ku jirto oo banka dahabshiil ah dalxiis aad ku degto hoteelada damal iyo weliba 10 gaari oo Hyundai cusub ah kuwaas oo qaar ka mid ah gaarayaan qiimo $30,000 intaas iyo xidhmooyin kale oo guud ahaan 5,000 oo abaalmarinood noqonaysa waad ku guulaysan kartaa waxa aad ka mid noqonaysaa liiska tartamayaasha haddii aad ku shubato ku hadal ama aad ku shubato internet ama aad tahay qof ka ganacsada ku shubashada ama aad tahay qof u adeegsada dahab qaab shakhsi ah iyo qaab ganacsi ah ka qaybgal macmiil oo ka mid noqo guulaystayaasha si aad u hesho xog intan ka badan fadlan garaac 333 ama 111